بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعبك شرفت بدن سنتر كان شحضة وبوهودله دقمة الدرنود دمانتين وسلامنتين وسلامنا آد بغضا مهنقنا سودوينتي ديرانيد تكون موجسين سيدي آد حتى بشيكتين وضياشا الشيغان يصير شعبك بوصوا قبقرين مناسبة وتكون مادسنتين قراد عبد الساق قراد صوفي قراد عبد السلام برالي سلطان سعيد سلادين تكلا يوقاشي أنا مقعود هالك هالشيءين دمانتين si kaliya laaba ayaan idinka guddoonnay soo dhoweyntii aadna waad ugu mahadsantihiin arrimaha aad ka hadasheen idinku iyo kuwa shacabkuwa ay tabayaan inay halkan kaga hadlin walow safarkan hadda aan nimid uu noqonayo mid cilmi badan noo kordhinaya oo degaankii iyo shacabkii iyo baahiyihiiba aan ku arkayno ma aha kuwa aan mooganayn oo imaatin la-aan darteed aan ku mooganayn maaha idinkuna waad noo sheegteen kulamo hore oon gallay war dheer baan ku gallay jijigaan ku gallay xukuumad ahaana nidaam dawli ah oo dhisan oo intuu dooniba ha ahaado tabartiisu yahay laakiin xogta taalla iyo baahiyaha jira lagu ogaanayo ayaa dhisan marka dhankan waxaa idiin sheegayaa inaan wax badan oo sheegteenna ognahay wax badan oo kale oona kolley aragtida ka fiican maqalka oo imaatinkani uu wax badan noo kordhinaya arrinta la xidhiidha safarkanaga ee soo daahitaanka waa run deegaanadii aan soo marnay ilaa daraad bawaan ka cuurdaaranay arrintaas kolley deegaanku wuu ballaaran yahay 93 degmo 93 degmo 6 maamul magaalo 11 gobol 2 sano gudahood iyadoo shaqooyinkii qaran iyo kuwii deegaanka la qabanayo in la wada tago oo la maro waqti bay qaadanaysaa meelun baa lagu horeyn lahaa meelun baa u dambeyn lahayd shacabka dhammaan deegaankuna uu noo siman yahay saa daraadeed haddii aan soo dahayn naga raalli ahaada inaydan muhiim ahayn laakiin ma ahayn inaydan muhiim ahayn oo hamiyadda aad ugu dambaysaan ma ahayn jadwalka iyo safarka iyo xaaladihii jiray baa keenay meelaha qaarkood waxaan u tagnay shaqooyin markaa taagnaa meelaha qaarkoodna booqasho sidoo kale oo qastiyaan u tagnay aad iyo aad markaa idinka raaligelinaya haddii aad dareenteen in hadda ka hor in la yimaado ahayd baahiyihii aad ka hadasheen intaana gelin ka hor waan ka garaabaynaa in astaamaha dawladda iyo adeegyada iyo kulli ay aagan ku yar yihiin ilaa shalay ilaa daraad meelihii aan soo marnay guud ahaan aagan xuduudda ah wax fara badan oo adeegya oo badan oo ka jira ma jiraan xagga wadooyinka xagga biyaha xagga caafimaadka xagga waxbarashada dhammaan waxaa ka jira dhibaatooyin taa macnaheedu ma aha meelaha kale ee aagan aan soo marnay shalay aan ahayn adeegyadaasi way ku dhaamaan maaha dhab ahaan marka laga hadlo maadaamaan soo wada marnay ilaa iyo mooyaale oo daawa ah ilaa iyo city ilaa iyo feerfeer dhulka ku jiro oo aan soo marnay walow baahiyaha aad sheegateen meelaha qaarkood ku kala duwan yihiin haddana shacabka deegaanka Soomaaliyeed xagga horumarka aad isuma dhaamo hooyooyinku weli dhamada way ku dhintaan jid la'aan bay u dhintaan ambulance la'aan bay u dhintaan ciyaar ciida ka badan meelo jigjiga aan ka fogeyn 100 kilomitir aan gaarin waxbarasho aan tegin baa jira biyuhu aad iyo aad dhibaatooyin u yihiin santarada biyaha soo codsada kuwa soo fokeliya ma kuwa jigjiga agteeda u badan marka baahida shacabka deegaanka Soomaalidu guud ahaan runtii wax isku dhowayaan meel walba martaan haddii odayaasha iyo uqaasha deegaankan kolley safar baan rabnaa inaan diyaarino bal dadyowga waqooyiga deegaanka degan gobolada ah inaan koonfurta geyno kuwa koonfurtana inaan keenno xaggan keenno waxay arki lahaayeen waxyaalo fara badan oo ay la yaabaan oo ay markii hore u haystay si kale yihiin taasi ma aha mid aan kaga hortagayno baahiyihiin inaan ka jawaabno ma aha mid aan ku duudsiyeyno xaqa aad u leedihiin inaad dawladda mug ka weynka hadda aad ka heshaan dhinac walba laakiin waa xaqiiqo jirta oo u baahan in la ogaado oo in la ogaado ay idinka caawinayso inaad idinkuna cabirkiina la xidhiidhka dawladda la yeelanaysaan inaad maareysaan sidaa daraadeed expectationku uu sarreeya iyo filitaanku annagana ilaahay naga dhigo kuwii ka jawaaba intii tabartanada laakiin baahiyaha deegaanka Soomaalida ka jira aad bay u ballaaran yihiin meel walba oo la tago magaalada Jijjiga ee caasimadda waxay u baahan tahay ugu yaraan in ka badan 20,000 oo mitir cube oo biyo ah inay soo galaan maalin walba laga cabo waxaa soo gala wax ka yar 7,000
xaafadaha qaarkood way kalkaystaan 2 maalmood 3 maalmood biyo ma haystaan waxaana ugu wacan beentii laga sheegayo horumarka oo 10kii sano dhaqaalaha dalku uu fiicnaa ee uu wanaagsanaa ee miisaaniyad badan deegaanku helayay loo adeegsanayay in lagu raali geliyo kooxdii TPLF oo lacagta badankeedu dib u galaysay iyo in shacabka lagu laayo iyo in inta markaa kursiga haysa iyada ay jirto saddex qayb baa dhaqaalihii loo qaybinay telefishinadina hadda dawataana wixii ka socday waagi hore hadda waad ogtiin horumarkii ka socday TV-ga iyo wixii la sheegay la socotaan waxay keentay heer hadda anagu aanan ka sheegan karin horumar xitaa markaan wax qabanno aanan sheegi karin maadaama shacabku ay ka aamin baxeen wixii ay dawladdu sheegaysay marka inaas waa hordhacan laakiin baahiyaha meesha ka jira waan daraasaynayna insha Allah hadii la yiraahdo haddana kulay kulankan hadda halkan shacabka mooyee gaar waan soo arki doonaa mas'uuliyiinta iyo odayaashaba xogtan ayo waxa ugu siimeysa waa biyaha hadda waxa u sii daran waa biyaha iyo health center xagga caafimaadka marka in health centerka hawshiisana dib loo eego biyahana la keeno waan ka shaqeyn doonaa baahiyaha aad beel ahaan u sheegateen deegaan aan ahayn in wax laga qabto waa la isku dayay dhanka matalaada dhammaan degmooyinka beeshu ay hoos tagto iyo gobolka doolo iyo heer deegaan matalaad waa la bilaabay beesha waa la bilaabay intay doon hal ekaato cid Soomaaliyeed oo maanta deegaanka joogto oon booqanay oon lahayn saamiga naga maqan ma jirto taayna ogaataa ma muhiim laakiin waa la bilaabay mas'uuliyiin baa laga arrinaya sax ma aha halkan mas'uuliyiinta nala fadhiya qaarkood aad aragtaan wajiga ka muuqdaan laakiin naguma fil iyo wax la sii badiyo waa la oran karaa arrimaha degmooyinka aad ka tirsantihiin booq iyo galxamur iyo danood matalaad dhalinyaro oo fiican oo mas'uuliyiin ku jirta bilowgii hore caqabadaha bilowday laakiin waa la saxay laakiin waxyaalaha aad ka hadasheen oo la xidhiidha dhinaca adeega oo xaggan soke ee bariga danood oo kale aad ka cabateen oo jira jid haday noqoto wardheer magaalada caasimadda iyo wardheer ma laha jid laftigeedu jijiga wax ku xidhaa ma jiro jidkan halka aan soo raacnay saaka ee ku nimid halkan unbaa ku lamida lagu tagaa ilaa iyo jijiga marka waxyaalaha qaarkood waa wax caama macnaha wax beelo idinku dhow iyo maamul gobol iyo xukuumad iyo ay idinka hortaagan yihiin runtii ma waa wax guud oo horumar la'aantii deegaanku ay keentay weeyaan meelaha qaarkood in saa loo fahmaa muhiim waayo saa hadaan loo fahmin waxa laga yaabaa in la isu arko in kaligiin ay hawshan ku tahay ma beelahan soo marnay iyo kuwa hadda aan sii mari doono ilaa intaan laabaneen qaloocan ka noqon doono danood sii mari doono ee aan dhexdii sii mari doono sariiq iyo agaas iyo adiya leeyda intaas oo dhan baahiyuhu aad bay u badan yihiin laakiin waxaan ka garaabaynaa in meelahan ay yihiin meelaha ugu baahan ee dawladnimadii astaamaheedii ayaan soo gaarin waan ka garaabaynaa waan garanaynaa oo ognahay dhanka waxbarashada dugsiga laga dhisay mirqaan looma dhisin in magaalada mirqaan kaliya uu adeego dhalinyarada aagan joogto oo dhan maadaama boordinadu ay yihiin kuwa heer gobol loo samaynayo kii gobolka doolo la siiyey caasimadii lama geyn mirqaan baa la keenay waxay ahayd arrin la xidhiidha ka garowsho in halkaa haddii la geeyo dadka reer guraaga ee waxbarashadu aan heli fursad gaar ahaan dadka danyarta ee magaalo ilmahooda aan geen karaynin meelaha wax ku baraan in la helayo marka macadkaasi markuu dhammaado wuxuu noqon doonaa mid aad wax uga bedela baahiyaha jira waxaan ogahay in dugsi sare oo kalena laga sameeyey mirqaan oo intii isbeddelka kadiba laga sameeyey meelihii aan soo marnayna ceelal meelo laga qodayaa jira baahida 30 sanadood ma 100 sanadood soo jirtay sanad iyo laba waxba lagama qaban karo laakiin in la bilaabo waa muhiim in wax laga qabto kulankeena maanta halkan aan isugu nimid yaa koow ka ah inaan diyaar u nahay wax laga qabto oo shacabka dhibaatadiisa la soo ogaado oo lagu xisaabtamo oo wax laga qabto dhanka baahiyaha markaa saas weeye waxyaalaha u baahan in wax laga qabto solarka lightka qararo iyo heegaale iyo shaxdu intuba way ku jiraan qorshaha hadda u baahan in solar loo sameeyo magaalooyinka lagu daray koow ka yihiin muddo dhow insha Allah waxaan isbedel baa iman doonaa isleenahay networkiga oo kale waxyaalaha degdeg wax laga qaban karo weeye isgaarsiinta maadaama ay muhiim tahay waxyaalahaas ugu muhiimsan biyaha iyo caafimaadka ugu sii daran dhanka waxbarashada dugsigu wuu jiraa laakiin in la tayeeyo taa shalay hadalkii aan baan ku celinayaa dhalinyarada aagan waa inay u diyaar garoobaan inay waxbarashooyinka dalka Itoobiya ka qayb galaan inay dugsiyada galaan kuwa farsamada gacanta kuwa kale affirmative action haday u baahdaan waa loo sameyn laakiin waa inay iyagu diyaar ahaadaan waxaan filayaa waa dhaweyd ilaa arday fara badan iyo la soo dalbay macallimiin baa jirtay lama helo inta badan aaga lagama helo ciidan baa hadda la qorayaa in dawladda lagu daro la rabaa oo dawladnimadii qaybka lama helo inta badan marka waxyaalaha qaarkiina waxyaalaha xukuumadda ku xidhan waxna wax odayaasha iyo hogaaminta dhaqanka iyo shacabka meeshan jooga saaran
inay iyaguna la yimaadaan go'aan inay dowladnimadii ka qayb galaan oo kaalintoodii ay ka ciyaaraan sidii idinkuba aad sheegteen isbedel ballaaran wuxuu ka jiraa dhanka xorriyadda dhaqdhaqaaqa xorriyadda hadalka nabadgelyada iyo qaabka hay-adaha nabadgelyada iyo ciidamada ay ula dhaqmayaan shacabka isbedel ballaaran baa ka jira deegaan ahaan aagan kuwaasuu ka faa'iiday isaguna waxaa hadda aan isla garanaynaa kulligeen in maanta baahiyada taagan inaan ka wada hadlayna ayna ahayn dad la xansuuqay dad la xidhay dad la muxuu ahay cagajugleen lagu sameeyey kuwa loo diiday inay soo socdaan oo dhulkooda meeshay doon ka tagaan waxaan ka hadlaynaa waa noloshina waa bilow weeye hadda unbay bilow inoo tahay samir ayay u baahan tahay waa in la samraa laakiin waxaan ka qabanayna arrinta aad ka hadasheen ee dhanka la xidhiidha degmooyinka iyo maamulada oo aad tidhaahdeen waa arrin aan dareensannahay inay udubdhaxaad u tahay baahida ballaaran ee aagan annaguna waan la qirsannahay waan garanaynaa waan ka garaabaynaa waa arrin saxa waa arrin aan qirsannahay in gacan bidixayn ay ka jirtay arrinta dhankaas in waxa ugu weynee dowladnimada looga qayb qaadan karaana ay tahay wixii dadka kale ay heleen inay aagan ay helaan taa waan qiraynaa qaabkii lagu fulin lahaa hadda ka horna waan ka wada hadalay waan idiin sheegnay qaabkii lagu fulin lahaa iyo nidaamkii lagu fulin lahaa oo aan dhaawacayn dowladnimada oo aan keenaynin meelo kale iyo foodooyin kale inaan furon baan ka fikiraynaa laakiin waan ka garowsannahay shacabka intaa leeg iyo bahadda intaa leeg inay u baahan yihiin maamul qaabkii iyagu ay usoo dhigeena in maaragtay u baahan yihin waan ka garaabaynaa fulintiisa laakiin waxay u baahan tahay in qaab dawli oo nidaam loo sameeyo hadda ka hor waxaa jiray in qaabkii maamulku deegaanka ugu dambeyn 10 sano u dambeysay uu noqday waxyaalaha ayna ahayn madaxweynuhu inuu awood keligii u yeesho in loo yeesho markaasaa la leeyahay in aanu awood iska qaadaya ma waxaan u danaynayaa nidaamka iyo wada socodka deegaanka ayaan u danaynaya waxaa ka mid a madaxweynuhu meeshuu maraba sidii isaga la quman saa intuu indhaha u mariyo inuu yidhi halkaas waa degmo halkaa maaha waxay keentee waxan maanta aad ka cabanaysaan waxaa keenay inaan kriteria jirin inaan wadda jirin inaan dariiq jirin wax loo maraa waxa iyadoo arrintaa qaabilsan inuuna jirin waxay keentay waxan maanta aad ka cabanaysaa haddii ilaanii la waafajiyo waxaa laga yaabaa qaybo ka mid a bulshada inaan aniguna wax siiyaa laga yaaba kuwo kalena aan ku xadgudbo markaan kuwa siinayo maadaama wax loo raacaya ayna jirin sidaa daraaddeed waa in la sameeyo nidaam kriteria leh oo dadka lagu xaqsoorayo oo maamulada qaabka loo dhisaya haddii ay jirto haddii arrintaasi arrin nagu raagaysa tahay oo sidii idinku aad ka hadasheen dhiig joojin meelo u baahan ay jiraan inaan hoos u eegno oon isu tagno oon wada hadal oo hogaamin ahaan iyadana diyaar baan u nahay marka saasaan taa ka odhan lahaa arrimaha kale ee dhanka dowladnimada la xidhiidha sidii hadda ka hor jirtay in waxaa u baahannahay xafiisyadu aad ka hadasheen iyagu ay awoodda qaataan awoodda ay yeeshaan soo baadhaan wixii ay qabanayaan soo qabtaan taasi waa qaabka dowladnimadu ku shaqayso weeye oo cid walba meesha loo dhiibo mas-uuliyaddeeda ay qaadato goldolooyin way ka jiri karaan macnaheedu ma aha xafiiska madaxweynuhu inuuna ogeyn haba yaraatee xafiiska biyuhu wuxuu ka shaqaynayo ma aha wax kaloo shaqaa ma lihin xafiiska madaxweynuhu xidhiidintii guud iyo dabagalkii guud buu leeyahay marka la leeyahay xafiis baa awood la siiyey dadka raba inay si kale u sarrifaan waxay yidhahdeen xafiisyadii waxay samaynayaan ma ogta madaxweynuhu ma oga ama madaxtooyadu ma oga ma aha waa la og yahay shirar baa la galaa qiimeyn baa la sameeyaa warbixin baa la kala qaataa dad arrintaa qaabilsan oo dabagalaa jira oo daba socda goldolooyin way ka iman karaan meelaha qaarkood waa la isku dayaa in la soxo waa laga daba tagaa laakiin guud ahaan waxaan aaminsanahay qaabka hadda loo shaqeeyo iyadoo goldolooyin ay jiraan inuu ka fiican yahay qaabkii hore sababtaa waxaan soo marray dhulkii aan soo marray keliya aan ka aragnaa labadii sane hadda isbeddelka ahaa waxyaalaha ka bilowday baan aragnaa oo kuwii hadda aan ka sheekeynaya kuwaasba waxay ka yimaadeen xafiisyo iyagu keenayay xogta oo lahaa halkaasaa dugsi sare u baahan halkaasaa caafimaad u baahan halkaasaa ambulance u baahan labay ka imanayeen marka qaabkaa shaqadaas in lasii xoojiyo maamulada degmooyinka iyo gobollada ciladaha ka jira ee la xidhiidha in la isku khaldayo qabiilkii iyo maamulkii waa in la soxo waa caqabadda u horraysa in hortaagan maamul ahaan weeyaan markii la dhisay qaabkii loo dhisay maadaama ahayd dadku inay deegaanadu iyagu ka taliyaan oo wax badan ay soo kordhisay oo shaqaalihii iyo nidaamkii kulli iyagu ay yeesheen oo ayna dareemaynin cid kale la dul keenay haddana qaabka loo adeegayo mas-uuliyiintu isku wada mid maaha qaab qabiil qaar u shaqayn baa jiri kara qaab maaragtay aan saxayn qaar u shaqaynayaa jiri kara taana in dowladnimo lagu soxo qiimeynteedii la sameeyo dabagelkeedii la sameeyo isla xisaabtan dhabi inay timaado waa la isku dayey goldolooyinka jirana in la saxo diyaar baan yaan u nahay ugu dambayn
arrimihii aad ka hadasheen dhammaantood inaan ka jawaabno diyaar baanu nahay safarkan insha allah ilaahay naga dhigo mid natiijo ay ka soo baxdo oo wixii halkan lagaga wada hadlay haday baahiyo tahay haday maamul tahay jawaab saxa laga helo qaabkii iyo nidaamkii arrintaas lagu geli lahaana insha allah haddii la muddo aan fogeyn waan la soo communicate garayn doonaa si aad noo soo dhaweysan waad ku mahadsan tihiin safar dheer baan geli doonaa meelo badan baa na sugaya ammaanka hala ilaaliyo annagu dadka aaminsan meeshan iyo beeshan iyo waxbaa ka dhex jira ma aha lama qarin karo waa xaqiiqo weeye in borderka soomaaliya marka xaggaa loo dhaafaba meelo fara badan ay dhibaato ka jirto halkan keliya maaha ilaa iyo doolacado ilaa iyo togwa jaale inta udhaxaysa mar haddii dal la yahay borderka in il gaara loo yeesho dhaqdhaqaaqeed ka jira la ogaado macnaheedu maaha in beel gaara lagu xumaynayo marka way jiraan waxyaala jira lama dafiri karo waxaas laakiin maaha wax keeni kara in aan shacabka naga u nimaadno iyo inaan la kulanno wax noo diidaya haddii khatar jirto shacabka inaan la qaadano khatartaas ayaan diyaar u nahay saasaana ku nimid intaas ayaan isleeyahay way nagu filan tahay maanta waxyaalihii baahiyahana waan ka jawaabaynaa waxaan u nimid maaha inuu keliya isbarasho iyo aan deegaanka aragno waxay ahayd inaan ka jawaabno baahiyihiina sidii dawliya oo nidaam la uga jawaabi doonaa waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu